وحكلو فائدة ليه هالوجاد ريسيرجيد قدام بيقول سمية إن ضدك بوقت علوش قبة أما قبة بوقتك ألسر أما نبر علولتك هي سومالي الجاس يقانين وكاف في عنينا أما وحبل له وجاد بإنه معناها داوينا النبر كيبوك وكقب قادنا إنه في عناده ريسيرجيد قدام بيوا مر السلام الله عليكم ولكن تورس مع الحدل ما أنتم حنك هذا دونا هدو الله يراهو وحدتك الصوماليات أي بقول كيف كنتم استعمالا كاسو بسباس كاسو فائدة بدن نول قريين إنه لقيه له وحن فيري دونا بل إسلا فيرنا أنا وحيابها وفائدة وليه جركين markii aan ka hadalno basbaaska waxa ku jirto kiimiko ama compound oo loo yaqaan kasbasiinkaas ayaa wuxuu keenaa dhanaga iyo falaafarka iyo kuleelka wuxuu ku dhagayaa receptorada neerfaha ku dhaga ama neerfaha ayuu ku dhaga wuxuuna stimulate gareeyaa kuleelka iyo waxaas aad arkayso ku dareensiyaa wuxuu kor u qaadaa kiimikooyin ay kamid yihiin serotonin somatostatin iyo sebastin db wuxuu faa'iidada ku wadleeyahay xanuun baabi'iye waxa loo isticmaalaa daawooyinka xanuunka lagu baabi'iyo dadka sokorta iyo qaba iyo ay marsadaan ama loo mariyo topicalka ama jirka korka la mariyo kareemada ah xanuun baabi'iyaasha ayaa loo isticmaalo waxaana la ogaaday inuu aad faa'iido u leeyahay waxa kale oo jiro asoo la isticmaalo adduunka ama kaniin ahaan loo laqo xanuunka dartiis waxa labaad oo faa'iido u leeyahay waxa waaye waxa loo yaqaan GIT tract ama systemka ama hab dhiska jirka ee caloosha iyo mindhicrada kaasoo uu faa'iido u leeyahay wuxuu badinayaa shaqada ama metabolism ko badinaya shaqada jirka ayuu u badinayaa asigoo dhisida iyo burburinta jirka oo sameeyo intaba ka qayb qaadanayo wuxuu kaloo ka yareynayaa acidka badan oo caloosha ka yareynaya asigoo xiraayo gastric juice ama gastric acidska ayuu xirayaa wuxuuna ka dhigayaa alkali ama meel aan acid lahayn wuxuu kaloo faa'iido u leeyahay la ogaaday researchid u dambeeyo la sameeyay in dadka boogta caloosha qaba ama qaba optic ulcer ama nabar calooleedka ee Soomaalida gaasku u yaqaaniin oo ka fiicneenaya ama oo waxa la ogaadaba inuu macnaha daaweynayo nabarkii bukay oo ka qayb qaadanayo inuu fiicnaado researchid u dambeeyo marka qofka maalmaha hore dib ayuu ka dareemaya markuu qaato oo wuxuu dareemaya kuleelkan hadda oo la stimulate gareenayo kadib wuxuu isleeyahay asaa ku keena laakiin waxa la ogaada faa'iidada dambe qofka hadduu u adkaysto in uu nabarka ka baabi'inayo ama ka caafinayo idan Allah insha Allah ta'ala waxa kale oo faa'iido u leeyahay la ogaada kansariska oo la document gareey kansarka prostate-ka ama ragga qandirka ragga ku yaala waxaa la ogaaday in uu aad uga fiicnaysiinayo ama daawooyinka oo chemotherapy loo yaqaan kale oo loo isticmaalo kansarka oo kaleeto oo ka joojinayo kansarka inuu koritaankiisa waxaa kale oo la ogaaday kansar kale oo hadda socdo oo researchada socdo laakiin wali aynan dhamaan oo kamid yahay sida kansarka naasaha ku dhaca kansarka beerka ku dhaca iyo mid ku dhaca beerka iyo kansar iyo mid ku dhaca caloosha ama colonka ama large intestine wax loo yaqaan ama caloosha mindhicir weynaha ku dhaco kaas asigana hadda waa socdaa faa'iido jirto waxa kale oo faa'iideeyaa marka kareem ahaan korka loo marsanayo waxa loo yaqaan psoriasis markii kareem laga soo sameeyo lagu soo daro waxa la ogaad wax loo yaqaan psoriasis ama cambaarta dadka ka soo baxdo in la marsado laakiin waa in kiimikada ay balance tahay oo la soo sameeyo ma ahan midka anaga basbaaskeenna caadi inta tuntid jirka ina marinaysid ma ahan waxa kale oo faa'iido aad u weyn u leeyahay oo la ogaaday ilaa haddana socod researchigaas aan wili bini'aadan lagu sameyn in sokorta oo daaweyn karo waxa la ogaaday markii la soo qaaday wax loo yaqaano dooligii oo sokor qabay ayaa la siiyay basbaaski markii la siiyay ama kasbasiinkii waxa la arkay in ay sokorowgi oo ka daawoobayo oo ka fiicnaaday waxaana loo yaqaanaa maadada oo markii kasbasiinka la siiyay la arkay maadadaas wax saas u shaqeysay waxa loo yaqaanaa substance B taas ayaa waxay keenaysaa in sokorowgi qofkii oo ka fiicnaado marka waxaan kula talin lahaa dadka qaadanayo daawo kasto ama wax kasto cusub soo baxo waa daawo cusub daawo ahaan loo isticmaalo wali way cusub tahay aadna looma publish kareen ama banaanka lama soo dhigin laakiin waxaan kugula talinayaa maadaama cunaysid wax kasto oo la cuno oo fiican dhinac fiican dhinac xun inay yeelan karaan sida inay kugu yeelan karaan dadka qaar calool xanuun inay yeelan karaan shuban inuu yeelan karo qofka labo inuu dadka qaar laabjeex dareemi karaan qaasatan inaynan cunin dadka qaba acid refluxka ama gaaska dadku ku soo laabta habeenkii ama dadka bog ka qaba maxaa la dhahay bog xanuunka ama heart bank qaba ama laab hulac qaba inay iska dhaafan dadkaas kula talinayo laanahu uu uga sii daraya laakiin waxaan kula talinayaa dadka qaba ulcerka iyo
aad kasbasiinka u anfacaya wuxuuna ka reysi doonaa nabarkaas ku yaalo marka waxa kasto isticmaalaysid waxa fiican inaan amount yar ama wax yar ka isticmaashid qof kasta aad tahay ama da yar ah ama weyna basbaaska waxa fiican maadaama uu side effect yeelan karo aanan la ogeyn kasbasiinka halkii basbaas ku jirto inta la egtahay waxaan kula talinahay wax aan waxba ka dhibayn hadhowna wax ku tara inaa cuntid si tartiib ah u cuntid hadaad ulcer qabtid ama nabar calooleed qabtid dhakhtarkaagana aad kala sii tashatid qaabka iyo waqtiyada aad cunaysid waa maasan tahay haddii aad isleedahay videogan wuxuu gaari karaa faa'iido ayuu u leeyahay dadka walaalkaaga la xanuunsan ulcerka ama nabarka calooleedka gaarsii like iyo share iyo subscribe kana waa dhankaaga insha Allah taala